قصة عجيبة ganacsadihii badda lagu tuuray inta aynan muuqaalkan bilaabin waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto channelka. hadda ka hor nin ganacsada ayaa markab soo saartay shixnad markii dhaxla marayo markabkii ayaa circiiray oo culaabtii ka badatay kadib ninkii ayaa lagu yiri ninyo markabku waad u jeedaa sida uu yahay waxaan go'aan ku gaarnay adiga iyo alaabtaada in badda la idinku tuuro kadib ninkii alaabtiisii badda ayaa lagu tuuray markabka waxaa saarnaa dad aad u fara badan markabkii ayaa qalibmay dhammaan dadkii oo idil waxa ay noqdeen kuwa dhinta ninkii ayaa badda ka soo dabaashay waxa uu xeebta ku soo gaaray si naflacaari ah wax dad ah muusan arkin iska daa wax caawiye rafaad iyo silac fara badan kadib waxa uu bilaabay in uu dhisto daash isagoo oo soo urursaday xaabo gaajo ayaa qabatay waxa uu u dhaqaaqay bal inuu raadsado geed miro la cuno leh hase ahaatee wuxuu dib ugu soo laabtay daashkii oo gubanaya markaas ayuu yiri yaa rabbi san maxaad iigu galaysaa habeenkii waxa uu seexday daashkii uu dhistay oo gubtay meel aan ka fogeyn subaxii ayuu wuxuu ku soo kacay qeelada markab soo gaaray goobtii uu joogay raggii markab ka saarnaa ayaa soo badbaadiyay markii ay dhex marayeen ayuu ku yiri warniman yahow sidee ku ogaateen inaan joogo meeshan waxa ay ugu jawaabeen anagoo marayna meel fog ayaa waxa xalayto aragnay qiiq iyo holac hawada isqabsaday dabadeed waxaan niri meeshaas qof baa ku dhibaataysan oo u baahan caawinaad ee ina keena sidaas ayaa kuugu imaanay kuguna soo badbaadinay haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu wanaag kugu soo marinayaa meel aadan filanayn oo ay weligaa ha ku degdegin in aad ka xumaato go'aanka alle ninkan waxa uu ka xanaaqay daashkii ka gubtay balse ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu dabkaasi ugu bedelay badbaado isaga iyo dhulkiisii iyo dadkiisii ku laabtay meeqa dhibna soo gaaro oo aan ku degdegnaa in aan sabar la'aan isdhiibno lagana yaabo in ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaag noo soo wado sidoo kale waxaad ogaataa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam dhibkii iyo rafaadkii ay walaalihii soo marsiiyeen waxa uu ilaahay ugu bedelay in uu noqdo wasiirka Masar qisadani maanta intaas ayay ku eg tahay haddii aad tahay channelkan markii kugu horeysay ee aad aragto waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto lana wadaagto asxaabtaada sidaas iyo amaano Allah